halkan shirkan jaraa'id ee aanu qabsanay anigoo gaaska guud ee beesha Ayuba shir jaraa'id kan aanu qabsanay waxaan ka salaamayaa beelaha Soomaaliyeed sool ilaa loo yacdo ummadda ku dhaqan ee Soomaaliyeed salaan kashkiya laabtaba ka soo goday oo diinta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kabid afar qodob baan ka hadlayaa qodob waa Soomaaliya qodobna waa caare qodobna waa musabixi iyo wixii aan soo wada maray waa yarag baamne qodobna waa mucaaradka kolkaan soo qaato dawladda koonfureed maxamed cabdillaahi farmaajo waad garanaysaa adeerka isagoo kabalabu ka cararay halkan haddaad u soo hanjabayso ood kolba dawladda Itoobiya afka u dhuubayso dawlad ma haddaad kun dawladood u tagto halkan laga qaadi maayo dawladda iyaduna sidaanu u goosanay baanu u goosan taa caloosha geli haddaad soo haweysatana waad guban doontaa taas iyadu waa taa musabixina waxaan leeyahay haddii ay beesha Ayuubnahay Soomaalidu waxay ku mahmaadaa nin fadhigaaga ka looma sara kaco halkaasaan kaga baxay tii waay aragnimadaynu SNM soo wada maray shirkii madaxweyne la yiri walaaleeye ee adugeyd 30 maalmood hilibkii geela iyo hilibkii ariga iyo caanihii geela aynu isla dhacaynay iyo ducadii iyo karaamadii markiina mire nin u tagan la waayay saaq ayuu baa u tagay annaga ismeenay noo tagnay annaga u yeernay shirkii madasha soo fadhiisanay miskii wada hadalka ogowtaana waxaan ku sheegayaa oo kale maalintii adigii siiraayo noogu timaadeen dhaboolqa inagoo SNM oo magaalada duleedkeeda joogna hargeysa ku dhicay loo dagaalamayno way ninkii adigii siiraayo noogu yimid dhaboolqa geedii waaweynaa quraacda ahaa teknikada markay taalay ad siiraayo kaga timid waadigii ugu yimid adigoo ciidankayga sii diyaar gareeyay bal yacsaa dhaboolqa waadigii ugu yidhi soo dhaqaaji waanigii keenay geedkii anigoo taliyo urura u joogay gudoomiyaha SNM madaxweynaha Soomaaliland noqday markii dambana waa kii khudbad dheer loo jeediyay madaxweynuhu waa kii ku soo gabagabeeyay qoriga wax fitada laga geliyo waan soo waayay dumarkeennii iyagaa qabay innagana beeraha nagu qotaan 2 saacadood bin Hargeysa u soconaa ma galla waxaan ugu jawaabnay haddaad garanayso muusow dadkii u jawaabay baan ka mid ahaa anigu waxaan idhi ilaahay nagu jira caabudlina waata ragani horta waa raggii marka dhibta in loo yeedho maaha kolka dheeftu jirtana waa inaad u yeedho caban mayno anagu waxna kaa dooni mayno anigu waxaan ahay xusbiga wadani oo mucaaradka waxaanan kaaga fiicanahay kii maxaafidkaaga ahaa afka dhuubaya ee beenaalaha anigu ma ogoli jiritaanka Soomaaliland wax dabandaabiyeeya jiritaanka waa muqaddas waana ilaashanaya waxaan sugayaa waqtigeyga shantaada markaad dhamaysato shantaydu ma sugayaa wax dhibaato keeni maayo ana ilaashanaya wadanka waa kaan soo halgamay waa kaan soo dhaawacmay waa kaan soo jabay ma garanaysa waxaan ku sheegayaa muuse waxa loo baahan yahay cadaalad iyo sinaan baa loo baahan yahay mucaaradkana waxaan leeyahay war waqtigeena sugaynaa inaan baasha riixin hadalka yeedaan badin isaga intaasan kaga baxaya iyaga aarana waxaan leeyahay muusow aare aduu saamaxaad waxaad dirtaa guurtida iyo madax dhaqameedka danaynaya jiritaanka Soomaaliland aarana waxaan leeyahay war ka tanaasilo dalkaagu waa dalkaagii dadkana waa dadkaagii adeer xabad cadow dabada ha noo gelinin odayaasha ku yimaada soo aqbalo soo raaco miiska wada hadalka kaalay annagaa kuu joogno wixii aad runad ka sheegtana kuu qabanan waana kuu saxeexayna madaxweynaha sidaa ku soo aqbal saamaxaad ku soo fidiyeen jananaare inshallah sidaasaan kaga baxaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh